الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إلهي بكليدي مهدله مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن عبد الرحمن محمد عبد الله maanta oo ay taariikhdu tahay 20 bishii 12 2025 wuxuu soo saaray qoraal rasmi ah oo ku socda dhammaan mas'uuliyiinta hoos ku xusan qoraalka ujeedadiisu waxa weeye magacaabista guddi heer qaran ee baadhista iyo qiimeynta dhacdooyinkii ka dhacay gobolka Awdal madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ka duulaya waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta amniga nabadgelyada iyo xasiloonida dalka gaar ahaan marka ay dhacaan xaalado u baahan baadhis qaran qiimeyn dhab ah iyo xal u raadinta tabashooyinkaba isagoo ka tiiraanyaysan rabshadihii ka dhacay magaalada Boorama ee gobolka Awdal kuwaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo khasaare kaleba oo shacab iyo ciidanba leh waxa uu maanta go'aamiyey inuu magacaabo guddi heer qaran oo leh awoodda iyo mas'uuliyadda buuxda oo ay ku baadhaan ku qiimeeyaan isla markaana u soo jeediyaan xukuumadda xalalka ugu habboon ee baadhista iyo qiimeynta ka soo baxa guddidani waxa ay noqon doonaan mid u hoggaansan shuruucda dalka kana madax bannaan saameyn kasta oo ka baxsan waajibaadkooda qaran ee loo igmaday iyaga oo warbixintooda rasmiga ah u soo gudbin doona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muddo kooban gudahood guddidan heer qaran waxay awood u leedahay inay sii samayso guddiyo farsamo oo heer degaan iyo heer gobolba leh kuwaas oo kala shaqayn doona waajibaadka loo igmaday magacyada guddiguna waa sida soo socota kow wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudane Cabdulle Maxamed Carab Sandheere laba wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Jaamac Faarax Buureed saddex wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Cabdilaahi Daahir Jaamac afar la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha mudane Ismaaciil Aadan Cismaan shan xeerliyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan lix gudoomiyaha guddida xuquuqul insaanka qaranka mudane Maxamed Baaruud Cali toddoba gudoomiyaha guddida nabadda qaranka mudane Cabdulqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde sideed Professor Saleebaan Axmed Guuleed sagaal mudane Axmed Faarax Xarbi toban Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar koow iyo toban mudane Cabdiwahaab Maxamed Xuseen Maax labiyo toban mudane Cabdi Cismaan Dhegaweyne saddex iyo toban xildhibaan Cali Xuseen Nuur Beegsi afar iyo toban xildhibaan Fuaad Axmed Diiriye shan iyo toban xildhibaan Cabdikariin Aadan Cumar Cambe lix iyo toban xildhibaan Axmed Yuusuf Sheekh Axmed toddobiyo toban xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Aareeye siddeed iyo toban xildhibaan Daahir Cali Jaamac Goodaad sagaal iyo toban xildhibaan Cumar Nuur Rayaale labaatan xildhibaan Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed koow iyo labaatan xildhibaan Maxamed Xasan Siciid gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ka ah labiyo labaatan mudane Cabdicasiis Maxamed Samaale gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye saddex iyo labaatan mudane Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani fiiro gaar ah labadii madaxweyne ku-xigeen ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala ah mudane Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax iyo mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxay guddida u ahaan doonaan xubno mustambeed ah Allah mahadle